Halkii bilood ee la soo dhaafay waxaa caadi ahayd markaan TV furno inaan aragno muuqaalka nin dhalinyaro Yemeni. Dhab ahaantii muuqaalkan aad hadda soo daawatay ma uusan ahayn TV balse waa wax la sameeyay. Inta badan waxaa adeegsada ogaansho. Sidoo kalena waa laga yaabaa inaad ku aragtay meelo kale. Bal ila daawo markii hore siduu ahaa muuqaalka. Adeegsanaya dabaqada codka jawaabta lagu magacaabay dheer sida aadaanka oo kale. Fadlan ila dhammayso muuqaalkan si aan kuu tuso sida loo sameeyo muuqaal noocan ah. Ila dhammayso muuqaalka ila joog ilaa dhamaadka. Marka hore waxaa soo furtaa CapCut. Hadduusan kugu jirin Play Store kala soo deg. New project ku dhufo. Waxaa soo doorataa background. Marka aad soo qaadato background-ka, kasii dooro Add Overlay. Haddana waxaa soo qaadataa TV-ga. Haddaa u baahan tahay TV-gan aad isleedahay halkan kala soo degaa, waxaan soo dhigay Telegram-kayga. Description-ka ayaan kuu soo dhigay meeshaas kala soo deg. Marka aad TV-ga saan u soo gashato, waa soo weynay. Kadibna waxaad raadisaa Remove Background. Chroma key kasii dooro. Background-ka iska tirtir. Mar walban iska delete garay loogadan CapCut-ka. Kadib hoogaa ku dar bahashan background-kan hoogaa dheeree. Sidoo kale TV-gana las cabirkiisa isla ekeey. Markaad inta joogto muuqaalkii soo qaado. Muuqaalka aad rabto inaad dhex geliso TV-ga. Kana iska soo qaadanaa tusaale ahaan marka uu muuqaalka san yahay waxaad raadisaa meel ay ku qoran tahay layer. Kadibna muuqaalka qabo gadaalka marsii TV-ga. Saa u jeedid hadda muuqaalkii wuxuu dhex galay TV-ga. Mana laga dareemayo. Waxaana loo maleeyaa inuu muuqaalka saan ahaa markii hore. Haddii aad nala soo gaartay halkan fadlan nagu soo bir channelka subscribe saar. Haddii aad hore nala joogteen muuqaalka like saar. Mahadsanid.